السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن السلام يا دمان ملكستو أجوكتان وولاشين صفية فارح باندي كسو دواذا ولا لها channelka daawada Mastering Power Within and anigoo saa iga barateen inaan kasoo hadlo waxyaalaha self awareness psychology ku saabsan motivation narcissist aan kasoo hadla ayaantaan oo dhan and weli maanan dhammayn maaragtay qaybta oo narcissist waa sii wadaa walaalaha iga soo codsaday marnaba is oran inuu dhammaan sababtoo ah waxaan rabaa buug aan ku qori doono iyo adigoo dhageystay inaan labadaba isku heshid. Okay, maanta waxaan ka hadlayaa last time wixii ugu dambeysay waxaan ka hadlay xanuunka dhimirka iyo dhibaatada uu nagu hayo qaabka aanu aragno anagoo aan haddii aan nahay qofkii waddanka joogay ama waddan Europe joog ama America joog ama meel kasta joog ama Carab joog ama waddanka hooyo joog in ay dhib ku wada qabaan dadka xanuunka dhimirka qabo ay ku dhibaataysan yihiin xanuunka ay jiranaayeen loogu sii daray dhibaato ka timi dadka u dhow iyo fahan la'aan. marka aniga waxaan sii wadi doonaa insha Allah awareness oo ah marka hore aanuna ka hadlin maanta horta topicaygu wuxuu yahay ogow waxaan isku dayi doonaa inaad fahantaan topicayga maanta aan ka hadli doono waa depressionka qarsoon. depression sad ogtihiin waa murugo qarsoon oo qofka laga dareemin marka uu hayo taa ayaan doonayaa insha Allah anigoo again idinkala hadli doona astaamaha uu leeyahay ama astaamaha lagu garto qofka marka uu leeyahay depressionka qarsoon. waayaan u sameynaa reasonkaas waxaan u sameynaa qof kasta inuu helo dawadiisa qof kasta inuu dareemo waxaan inay yihiin wax laga bixi karo waayo qofka marka uu qirto uu dareemo uu fahmo waxay leedahay jahal looga baxo sida kaniinka xanuun baabiha aad u qaadato marka arthritis lagu soo sheego marka dhabar xanuun lagu soo sheego marka lagu yiraahdo kiliyaha ku xanuunsan daawada u qaado marka lagu yiraahdo dhagtaadu waa sida qalniin ay u baahan tahay xanuunkan daawada u qaado haddaba mindka uu jirada asagana xanuuno badan way soo maraan laakiin waxa aan ku noolnahay u maleysaa waqtiyada westernka ay ku noolaayeen waqtiyo waxaa jirtay qofka hadduu uu mar psychiatric u tago ama laga maqlo inuu psychology la hadlay ama laga maqlo inuu counseling tagay in shaqada dhan laga ceerin jiro qofkaas oo shaqada dhan la siin jirin laakiin maanta annagay waddanka Soomaaliya joogno ayaa hadda waxyaalaha ugu dhibka badan oo aysan waddanka kaliya ku ekeen ay ku jirto waayo meel kasto aan tagno dhaqankeeni iyo waxaan wadanaa qaybta qaldaneed oo ah fahanka aan ka aaminsanahay in waxa la yiraahdo xanuunka dhimirka taana waxa keenaya isleeyahay waa education la'aan waa fahan la'aan waa qirasho la'aan inuu qofka uusan qirnayn. Okay, waxaan ku siinayaa haddaba ilaa 10 qodob oo aad ku ogaan kartid haddii aad isku aragtay ama qof walaalo aad taqaan ku aragtay xanuunka hidden depression sida usoo sheego hordhacayguna waa wax laga bixi karo waa wax qof yacni adduunka inta joogo populationka ee inta badan ay soo mareen wadamada western aan joogno aysan wax laga yaabo ama lagala xishoodo aysan ahayn wax ay keento alwaysna situation ay u badan yihiin marxalad inay keento divorce uu keeno waxaa dhici karto inuu qofka waddanka lagu soo guro waxyaalo badan asu keeni karo ilmihii ka weynaada meelo badan ay dhibaatada kasoo gaari kartaa laakiin mid waxaa jirta hidden depression tan oo muuqdo waa mid la daaweyn karo oo qofka uu isfahmi karo oo raadsan karo laakiin mid waxaa jirto secret ah oo adiga kamaadan in secret laakiin iyada ah secret oo iyada ah secret maxaa ku garan kartaa marka number 1 waxaa ku garan kartaa blaming yourself adigoo naftaada blame siinayo ama wax yacni wixii ay qalado dhan maanta dusha ka saaray adigoo aad maanta dhan qalad dusha iska saaraysid for example inaad wax aad maaragtay waxa laga yaabaa waxa si u qabato kuma hagaagin waxa adiga dusha ul isku dhacay taas marka waxa la yiraahdaa hidden depression calaamadihiisa ay ka mid tahay waxa calaamadahaas oo kale ka mid ah qodobkayga labaad in markii fursad lagu siiyay fursadaas oo aad dunida aad doonaysid inaad noloshaada ku hormarisid ama fursad haday noqoto caafimaad haday noqoto fursad horumar ah in aad albaabka iska xirtid oo aad diidid fursad education aad dhici karto fursad waxaa dhici karto in lagu siiyo scholarship fursad waxaa dhici karto in lagu dhaw wax baro yacni waxaa leedahay opportunity meel aad wax ku baratid lacag aan lagaa rabin iskuullada oo kale college ko kale in lagu dhaho waxaan waa fursad ay ku tahay baro ama waxaa laga yaabaa fursad in lagu siiyo qaali ah lagu yiri meeshan iyo meeshan ayaa ku fiican ama shaqadan ku fiican laakiin qofka always hidden secretly oo depressed oo u qarsoon tahay taama ogola waa iska xiraa albaabka waxaa kaloo lagu ogaadaa qofka qodobkayga saddexaad in uu qofka uusan lahayn plan waa ogtihiin in qofka uu leeyahay in uu maaragtay jadwal uu yeesho noloshiisa jadwal ku socdo
timekiisa u ilaashto waa waxyaalaha ka mid ah healthiga. laakiin hidden secret qarsoodida maaragtay qofka markuu murugo gudaha ka dareemaya laakiin qarsoon uusan isdareemeynin waxa uu isku ogaan karaa in uu noqdo qof waqtigiisa aan u xisaabtanayn haddana aan jadwalba samaysan karin oo mar walba dib u dhacayo oo ku warwareegsanayo meesha uu taagnaa. waxaa kaloo dhacdaa qodobkayga afaraad in uu qofku noqdo in uu dareemo in uu xambaarsan yahay waxa la yirahdo grudges waxa waaye cuqdad. sida cuqdada u dhahno inuu cuqdad gudaha kugu jirto cuqdadaasoo ah beri wax hore lagaa hadlay sanad wax hore lagaa hadlay 2 sano ka hor 5 sano ka hor oodan ogeyn waay qalbigaaga uu soo noqnoqotay markay ku soo noqotana wixii aad u haysid ilaa abadka wax laga yaabaa qofkii dhintay xitaa qalbigaaga in aysan ka bixin. waxaa laga yaabaa in qofkiioo nool oo kala tagteen oo adigana you moved on noloshaadii everything laakiin still you holding grudges or secretly yani waxay ka mid yihiin depressionka qarsoon oo aan la fahmin oo adiga xataa aan isfahmin inaad depression uu ku hayo laakiin secretly ahaan ayuu ku hayaa. taas waa midaas midda qarsashada ah. waxaa jiro qodobka shanaad waxaa ka mid ah inuu qofkaas waa ogtihiin qof walba ibni aadanka alxamdulilah emotionkeena waa noocyo kala duwan. emotionka waxaa ku jira cabsida, waxaa ku jira xanaaqa, waxaa ku jira nabadgelyada, waxaa ku jira jacaylka, waxaa ku jira wax surprise oo kale maaragtay aadan filanin. laakiin qofka depressionka qarsoon qabo oo secret oo is ogeyn isaga xataa waxa uu qofka uu dareemaa markasta uu rabo inuu farxad noqdo in farxadiisa noqoto mid uu asaga false happiness inuu isku riixo farxad aysan noqonin iska timi farxad ay noqon uu 100% u dareemo ama farxad ka soo baxda farxad oo yani false ah inuu xataa wajigiisa maaragtay oo happy inuu ka dhigo oo xog ku noqdo adoo hadda murugsan let's say waa xanaaqsanay right now can I smile no hadda isku dayo inaan smile been iska sameeyo inaad dhaho saas markaan dhaho indhahayga waa ka dareemaysaa laakiin smile farxad le markay tahay way ka yara duwantahay. taana waxaa ka mid ah waxyaalaha lagu ogaado depressionka secretka oo qarsoon oon ku jirka aan u ogoleen inuu banaanka si fiican ugu soo baxo aad u baahatid inaad caawina hesho. so waa false happiness inuu qofka samaysto. qodobka lixaad oo aan ku taagsan doono insha allah waa qodobka markasta xitaa markii diagnostic ay sameynayaan oo lagu ogaado symptomka ugu horeeya oo depressionka waxaa la yirahdaa apathy waxa waa qofka in uu noqdo in uusan maaragtay helpless in uusan awood badan uusan lahayn sida hore wax uu qabisan karin helpless uu dareemo inuusan guri ka soo bixi karin in aysan u suurto u niyad gashtabo in waxaan dhan ka soo bixi doonin in noloshiisa sida hore ay noqon doonin in waxaan u badan teenage-ka u badan marka xanuunadaas uu taabto ama markay 20 ay gaaraan way u badan in qolol isku soo xiraan ay dhahaan like it's so and so hebel ama hebel jaamacada dhameeyeen way hormareen laakiin aniga ma noqon doonto albaabkii xirta xitaa help way diidaa in la caawiyo waayo waxaa active ah apathy leeyihiin. apathygaas oo ah inay ereyga dhahan ma awoodo I can't ma samayn karo ma aadi kari ma dhameyn karo ma sii dhaqaaqi karo nothing is gonna happen wax ma ii suurtagelayso meesha ku ekaada. taas waa apathy subhanallah. number 7 inuu lahaado qofka xanaaq yani ilaawinta xanaaqa frustrationka abuura waxa laga yaabaa sababtoo ah this is the opposite of waxa waaye depression. qofka depressionka badana murugadiisa badan xanaaq ma lahan marka xanaaqa uu leeyahay waa marka la rabo inuu qofka iska celiyo laakiin kan waa dhinaca kale opposite-ka waayo waxa waaye xanaaq ma ahne waa frustration waa jahwareer inuu qofka jahwareer noqdo. qodobka 8aad inuu qofkaas mar walbaba uu noqdo qof complain inuu daalan yahay waan daalanahay shalay waa daalnaa darad waa daalnaa tii ku xigto waa daalnaa niyadiis waxaa gashan inuu maalmaha soo socda uu daali doono subhanallah. this is waxa waa hidden depression. haddaa isku aragtid please help raso waayo mid soo baxsan waa midda symptomka inta ku tusto oo u dareentid oo naftaada ku caawini kartid ogoona depressionka wax forever ma ahan oo wax laga bixi karo. marka qofka wuxuu yeeshaa inuu daalan yahay waxaa kaloo ku xiga inuu noqdo abnormal eating cuntadiisa inay bedelanto ayda xoog u cuntay taasna classic waxay ka mid tahay depressionka. waxa uu soo qaatay tusaale ahaan waxa laga yaabaa qof inuu yiraahdo aniga cuntadeeda yani maaragtay cuntada sidii hore kuma ihi ama waxa laga yaabaa inuu binge eating noqdo inuu marka uu gaajo meel ka socoto lahayn awareness asagoo lahayn mindkiisiyo joogin inuu saxan soo qaato cuno haddana baahidii way haysaa haddana wax yar kadib laakiin isku madadaalinayo uusan is ogeyn farxad yani ka raadi maskaxdaada mashquuli in ay ka tahay taasna way dhacdaa. tan ugu dambeysa number 10 mood change
qofku wuxuu noqonaa high level farxad, low level dhaqsadii. high level wuxuu noqonaa haddana wuxuu noqonaa asaga dhanba yacni hawadiisa isu babadasho kale mood change. mood changegaas waxaa laga yaabaa inay asaga ku kooban tahay aysan dadka la dareemin. inuu asaga is yiraahdo haddaay waa faraxsaneed moodkaaga u fiicnaa, haddana waxay markaa joogto moodka haddana hoos u tegay, haddana waxay markaa joogto haddana wuxuu noqonaa dailygii normal ahaan. horta to be honest waa normal qofka inuu farxad dareemo, inuu haddana dareemo maaragtay moodka isbedelo, waa natural. tan koowaad qalad yaan loo fahmin, waa natural because ibni aadanaan nahay. markuu wax nala soo gudboonaado moodkeena wuu isbedelaa, laakiin it doesn't meesha kuma ekaado. oo waayo garashu ilaahayna siiyey oo aan dhahno subxaan allah waa ka bixi karaa yani qofka uu bedelo uu ka cuudubilaysto, uu soo weysaysto, hore uga dhaqaaqo, oo maaragtay uu isku soo celiyo sidiisii hore. laakiin tan secretka ah oo depressionka marka ay jirto qofka awooddaas umuu lahaa. so insha allah haddii aad isku aragtay qodobadan aan soo sheegay, hadduu ilaah idmo nafsadaada dib u fiiri, naftaadana daacad u noqo. dadka dareemo ama dadka dhibaatada ku hayana, qofka dhimarka haya xanuunka dhimarkana waxaan ku leeyahay kow allah subxaana watacaala ka baq, waayo xanuunka jirka iyo xanuunkan waa isku mid. waana kusoo celcelinaa video kastoo aan duubayo si ay dad badan u ogaadaan in aysan ahayn wax laga cararo, wax laga xishoodo, wax guri laisugu xiro. ay ka mid tahay markuu qofka TB hayo, markuu xanuun hayo, wax walbana ay yihiin xanuun oo ilaahay subxaana watacaala allah u keenay. allah subxaana watacaala xanuun markuu keenan wuxuu keenaa waxa looga baxo iyo dawadiisa. marka aad iyo aad u mahadsantihiin. maaragtay oo su'aal oo comment waa ku reebi kartaan. waxaa idin leeyahay in meantime assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.